cunugtan yar ayadoo ooynayso oo meel fadhido ayaa waxa u yimid wiil yaro iskoolka la dhigto oo la leeyahay Caamir iyagoon ku wacaan imo marka cunugiya wuxuu weydiinaa Hudo maxaa la ooynay Hudo waa 12 jir wixii tiri ma ku sheegi karo waa cabsana in la idilo nafta laga qaadan ka cabsana markaas wuxuu leeyahay sirteeda waaye isha ma sheegay waxay leedahay waxaan la ooynayo wax xun igu sameeyay ama Cabdo albaabka waardiye iskoolka ana musqusha galaayo oo intuu i qabsaday oo i kufsaday hadaa sheegtidna naftan ka qaada barqasa cajiib waaye nakaxsha bal aan wada dhageysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت قصدنا وحي كشيكيني المير أو إكتان إسكولك المها دباتوين كقار سوغار ونلؤغين marka ilmaha deeyma iskoolka yimaadaan masadalka jooga masdibada hal joogane ilmaha yararka hala wareysto saaxiib la noqdo hadalka yaa lagu celin hala dhageysto qisadan saanay ku dhacday Hudo waa 12 jir imo waxa waaye Caamir waaye Caamirne asagana waa dabcan iyada camal waa 12 jir waaye iskoolka iyaga isla bilaabay cunugan markii ilmaha ay arkeen daciif waa ilmaha caatada waaye mar walba imo kelmadda imo daasa dhibtay markaas iyaga dhanba waa ka goostay gabadhaan wuxuu arkay in iska afgaaban gabadhii oo saaxiib la noqday ayagoo yaryar saaxiibo ahaayeen sirtu isku qarsanaa laba qofood isla dhalatay camal u ahaayeen ayaa 12 jir markay naqdeen iskoolka stiil ay sii dhiganayaan 12 jir markay naqdeen ayaa maalmaha kamid wuxuu arkay Huda oo ooynayso ayadoo oohin indhaheeda joogsaneen jareynayso oo meel fadhintu yimid Huda maxaa kugu dhacay markaas wuxuu tiri ma sheegi kari dhibaatada ay ugu dhacday laakiin dhibaatada hadaa sheego kow in laga sii waa kow akaasina u yiri sirteeda waa isha markaas waxay ku dhahaysaa ama Cabdo albaabka waardiinayo iskoolka ana musqusha galaayo intuu i qabsaday oo i kufsaday a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim oo i kufsaday haye marka hadaa sheegtidna waa ku dilaa naftan ka qaada waxaan sameeyo ma aqaani waxaan sheegay ma aqaan qofna uu sheegi karo waa cabsana markaas wuxuu leeyahay qofna ha u sheegin laakiin hal mid u sheeg مديرته وحالها إسكولكا محلها فيش ترتر مثل ترتورا لها صوماليا مالينا وطن كان جوجنا هذا تأسويدنا ريكتور واي مرك إسكولكا قفكا كوركا هايستو أي قفكاس مديرته أوتك برتو وحي جرو دم وشك أكو دعين هديك كلاته ما نولبو أما عبدو مركا مسخوش جلس وكواردي سنة عنق عقل بازم استنى ما شاء الله cunugtii waxay tiri haye gurigood markay aragtay cunugtii wixii uu ku sameeyay dhibaatadii uu adkeysiweysay waas dishi cunugtii qolkeeda xerig inta ku xiratay ee iska soo lalmisay waas dishi inta xarato way dhimatay gabadhii waxaa loo soo sheegay Caamir haduu yahay gabadhii yareed ee iskoolka isla dhiganayeen ee saaxiibadana ahaayeen dadku isugu dhawaayeen sirtan isku qarsan jireen sida walaalo kale inay isdishay wiilkii wax isku dhaxay camal noqday yani maskaxdii shoogo ka qaaday wuxuu ka bixi waayay ama Cabdo sabab adar Cabdo sabab yani wax warkiis dhageysanay male hooyis aabiis way wadeen waxay u geeyeen qaybta marad nafsiga caafimaadka maskaxda hadii la fiiriyo waxa la cunugan daawo u baahan yahay magaalada aad degantiin aad ka guuri kartiin waa fiicanta magaaladii ka guurin magaalo kale u guurin stiil cunugan markuu seexdo indhaha isku qabtaba waxa hortaagan Huda weliba ay leedahay xaqay goorma ay dhaceen goorma ninka soo diray goorma iga reebay cunugoo sii qaylna daawo la siiya adiga dugsiga sare saasoo ku dhameeyay jaamacad oo bilaabay jaamacada markuu bilaabay oo soo weynaaday alxamdulillah yani kabuuskan oo arkay qofkan mar walba riyada ugu imaanis markuu seexdo bay u imaanis oo ka neefsana oo weyna jaamacada markuu dhameeyo oo sas u dhameeyo oo haddana markuu seexdo oo soo bilaabay jaamacadii u dhameeyay shaqaraadis way soo bilaabatay gabadhii hor imaanis hudadiyo sideeda waxay leedahay goorma xaqiiqi soo dhicine goorma soo dilay ama Cabdo goorma nafta ka soo qaaday goorma dilaysa ma ahan walba hortaaganta way ka badbadatay wax uu sameeyay intuu ka sugaayay oo maalmaha kamid
mindi inta soo qaatay tuuri dheer ah oo soo baxay oo suuraad magaaladii usoo noqday soo baawar wato bartiyo yimid oo iskoolka ahay iskoolkii wuxuu arkay maqrib ah oo albaabkan sii laabay ama cabdo dadka daba tagu yiri ma fiican tahay waa fiicana wuxuu yiri wili iskoolka ma aa joogtaa wili waardiye ma tahay ma ka cabsanaysid miyaa habeen waaye markaas wuxuu leeyahay maxaa uga cabsanaa ma ka cabsanaa waxaa dhacay qof weyn waa noqoto waa waayeelowda iskoolkaanit cabsi ma kaaga jirta miyaa ma ka cabsanaysid miyaa jinnida iyo shaydaanada inay habeenku yimaadaan wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanaya ma jirto markaasuu leeyahay ama cabsata ama jinni iyo shaydaan waa ka cabsada laakiin dadka ma cabsado wuxuu leeyahay ka waran heew leeyahay albaabka inta laabo wuxuu leeyahay ka waran uu leeyahay maanta jinnigii huda wuxuu soo diray inuu adig ku dilo maxay tiri soo jinnigii huda gabadhii huda la leeyahay oo xoog jirtay ee musqusha ku kufsi jirtay wuxuu soo diray maanta jinnigeeda uu soo adeegsaday inuu adig ku dilo tooreedin uu soo baxaa jog 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 meel walba ka gelina odaga meesha ku dhig baxaa tooreediisa laalaabana inuu daliil dhan ugu tago yaa يعني واحد عدين دم الأركو أبديدين ولا صباحا أوركي سراعة مقاليس وكنا قنا وحس داي من دي أنتو قاضوا ومن كطور وحد نسكن نظيف فيه هنا بدي ليه وعوس لهاي خلاص وهدوء وسوء أرجودي مرضى بهدوء مكور إيمانش حد يكول بلاوته مركو ساحضه بابتنا هرتاجن أبيس دوكو قيلو حلا هدوء هرتاجن دل هو يزدل هاشو حلا دل قفض والد يماد wax sheeg wuxuu leeyahay dil adiga iyada la hortaagan hebel dil adiga maskaxdii dil meel xuna ilaa maskaxdii tagaysan qofta maskaxdiisna marka hore baa isku dhaxayacdo daawooyinka la siinay ma wiilkii waa ka daray marka qaylo hebelo wadila adaan ku dila ayadan dila cidi xidhi bas wiilkii isku dhaxayac isbitaalka waalida la arda waalid markii la geeyo ee daawooyinka la siiyo ee dhakhtarada hor fadhiisato asagoo sariirta jiifo ay wareysanay wuxuu ka soo bilaabay hudo yaraanteedii ama cabdo markuu kufsanayay dhibaatada u geystay ama cabdo asaga maskaxdiisa dhibaatada ay ugu timid waxyaalihii uu sheeg ka bilaaba si loo dhageysan yani ma la ogaaleheni yani waxaa lagu ogaaday buugo markuu roonaaday buugo intuu qabsaday oo waxay qortaan dadkan xasuus qor anaga xasuus qor ma ka tagno sunta Soomaaliyeed laakiin dadkan kale xasuus qor ay ka tagaan xasuus qor wuxuu ka bilaabay waagii yaraay hudasa isku barteen iskuulka waagay bilaabeen ama cabdi soo xoogay soo maxay heeto la dhibaato u geystay say gabadhii sheeg intuu yiri u sheegays mudiirada markay isdireysay qof dhibaataysan ahayd asaga in dhibaato maskaxdiisa ku dhacday in magaalada ka soo guureen in aabiis hooyis dhakhtar gey jireen waxyo dhan inuu cabdi u tagay inuu mindo ku dhuftay inuu dilay markuu dilay kadibna still ay wili hudadii hortaagan tahay in qof walba leeyahay dil qof walba leeyahay day marka dambana istir adiga isdil ee meesha joogo asagan wuxuu xiranayaa sidii hudo isku disho amal inta xarag oo isku dilaasan waa dhintay Allah yarxam raahimah marka isdili qaabku isdil waa loo jeedaa laakiin muxuu isku dilay qof ogmale qof walba xilada ninka waa shay maxsalaam nin waa loo ahaa laakiin buugiisii markii la aqriyay ayaa waxaa la ogaaday bilaw إلى دمات شيكيس بالله إلى دمات ساسان لو اوغادي سي كلمه لو اوغالين شيكدان ما انت سيكو اكتاي شيكدان شيكو حكت ان شاء الله وينو مرضم ان شاء الله لكن waxaan dhihi lahay hooyooyinu abayaalo ilmaha waqti la siiyo ilmaha la dhageysto inuu ku yimaado ag fariiso inuugan ku imaanin adiga u tag albaabka u jukay ag fariiso la sheekayso khod maanta maxaa soo aragtay maanta yaa kula hadlay maanta maxaa dhigatay maanta maxaa soo cuntay maanta dhibaato ma aragtay maxaa dareemaysaa waxaan ka dareemaa in dhibaato dareemaysid cunugaaga taa dareemi kartaa ilmaha la sheekaysto ilmaha la wareysto iskoolka ka yimid maxma shay ilmaha isku mid ma ahan mid wax sheegay ma jirta mid aan wax sheegin ma jirta kan wax sheegay albaabka markuu ka soo galo oo ku sheegaa laakiin kan kaleete oo sheegaynin ilmaha xajir cabsidooda badan tahay ilmaha waa kala fulisan yihiin ilmaha waa kala geesisan yihiin ilmaha qaarkood hadii la leeyahay bariya ka walagaasina xataa ma sheegaan wala dil karaale ilmaha qaarkood dhibaatada hadii soo gaarto ma sheegaan in isdilaan oo ugu fududaato special dadkeena qurbaha joogo marka ilmaha waqti la siiyo hala ag fadhiisto hala la sheekaysto hala weydiyo والله
runtii ani waqtiga aan soo galay iyo waqtiga aan kaliibkan duubayo isku waqti ma ah waa imaadaa musqushaan galaa salaadihii markaas iga tegi rabaanan inkastoo alxamdulilah meeshaan ka shaqeeya salaadihii kusoo dukado inta kalena haddana ku dhamaysto guriga marka qaarkood xataa qadada ugu soo noqdaa ilan shaqada dii mar ii dhawaato shaqooyinkaa shaqada wareegta le waayo marka maxay ahayd toole alxamdulilah shukr bilcaalamiin waqtiyaa la siiyaa waa iska ag fadhiistaa waa iskala sheekeeyaa waa ka dhex qoslaa cunuga wejigiiska dareemo waa soo wataa qolan keensadaa waa la sheekeeyaa dhinacyadan ka marmaraa marka dambe wax uun leha sheego adiga cunuga hataa kalsoonidaa siisid ala sheekeysatid tiraahda anaa kuu joogo maxaa dhibaato ad arkay maxaa dhibaato dareemay waxbaa ma aragtaa ballan waaye inaa aniga adigu ku garab taagnaado weliga aan garabta hadalka intaa cunuga lagu celin oo layidhahda haye waxay jiro marka dambe waa ku sheega kalsooni u baahan yihiin kalsooni hadaa siisid waa ku sheegaya cunuga ugu aamusa badan hadaa dhinacyada ka gashid waa sheega ilmaha waqti ha la siiyo ha la wareesto yaan warku lagu celin war badanaa waa daalaa shaqanka iga tag yaan la dhihin ilmaha ha la iska wareesto saa fresh u noqotiin fitamiinada ha la cuno fitiinka naftigiisa fresh u dadka dhigaa runtii aniga hadda shantii aan kacaa salaad subaxaan tukadaa shaqadaan isku diyaariyaa ilmaha dharkood meesha habeenkii soo safaa alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin albaabkaasaan ka degaa markaas waxaa waaye shaqooyinka naftirkeeda waxaa waaye labada waalideyn qofna gelin karo haddoo galo qofna gelinka dambe oo galaa laakiin subaxii islama wada kalihi karo ilmiyaa maqana haddaan subaxii kalihin oo duhurkii galabtii gelinka dambe kala haay subaxii haddana wadaadka kala haay maasha allah tabaarak allah marka shaqooyinka naftirkiisa in la kala bedeshto oo ilmahaaga meesha ku baxeen hadduu aabihii ogyahay hadda maalinta kale hooyaa tahay meesha ku baxeen aad ogaani way fiican tahay iyada naftirkeeda wabido marka insha allah saasaa la sameeyo ilmaha ha loo sabro ha la dhegeysto ha kalsooni ha la siiyo برد إلهي حالكيس إلا جوجنا مس وطن كهلا جوج مس جوزها هلا جوج مس دبتها هلا جوج المها هلا دقيستو المها مساكين وح مشاكل هلا دقيستو وإلمو وحمقوا ساسا نبقوا إن شاء الله غير بدنا إضافة عافيمات بش برواقو شير لايك سبسكرايب هيلوين إن شاء الله غير بدنا إضافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته